هوية عدالة يقصور وحقيقة مرك إن فهم سنة هي إنه فريه هي مرك إنه فريه عدالة لا عنه وحوي وبربر دولة ديت وأنا بربر من ماذا ينعه مدهد اللحظة سنة اللي جوه يعني حرية قادمي مدهداسي عن قادمي دولة المدينة حقيقة وهي الأردن سيدي كل رأتي سيد كتمت حدان دب إدينو حسوسيو مدو لaba bilood hadda nagu soo socota waxaa go'aan qaatay wafdigii ka yimid gobolada waqooyi ee uu Ingiriiska gumaysanayay iyo gobolkii koonfureed waxay ku heshiiyeen qaabkii dawliga ahaa ee dalkan lagu wada lahaa hadduu yahay federal system iyo hadduu yahay unitary system waxay isla qaateen in la qaato unitary system waana ku heshiiyeen laakiin waxa muhiim ah in la xuso dadkii wafdiga ahaa ergada ahayd oo ka timid waqooyi ma aysan gorgortamin mana aysan weydiisan waxay ku bedeshaan midnimadooda ma aysan weydiisan taas waxay caddeynaysaa inay ahaayeen runtii dad wadaniyiin ah dad raadinayay dowladnimo dad raadinayay midnimo dad gob ah inay ahaayeen koonfurtii aabayaasheen ay ahayd inay yidhaahdaan waad nagu soo darsateen shuruud la'aan see wax u qaybsannaa see wax u rabtaan ma dhicin waxay ku qanceen wafdigii ka yimid gobollada waqooyi wax alla wixii koonfur ay rabtay oo aysan iyaguna qaybtoodii awood qaybsiga aysan ka helin ayay ku qanceen halkaasi dowladnimadeena waa nagu dhalatay xornimadeena waa qaadanay laakiin muddo 7 sano kadib yaa wixii khaldamay la saxay oo sidii saxa ahaa wax loo qaybsaday koonfur iyo waqooyi muddo yar ka bacdina dee isbeddel baa dhacay waxaa la wareegay dowladnimadii military ciidamadii baa la wareegay waxaa laga shaqeeyey ama la bilaabay mabaadiic cusub oo hanti wadaag la yiraahdo ilaa dagaalkii 77 dadkii inta badan ma fahamsanayeen hanti wadaag dagaalkaasi runtii dhibaato weyn ayuu noo geystay iyo dhaawac ayuu noo geystay aad bay dowladnimadeena ugu daciiftay dadkeennii waa niyad jab badan baa ku yimid dhaqaale xumo badan baa dhacday halkaasi runtii dhib badan baa ka yimid waxaa bilowday jabhado oo sheeganaya in cadaalad darro ku dhacday oo sheeganaya cabasho badan iyagoo ka sheeganaya systemkaas markaas jiray halkaasi dee waxaa ka faa'iidaystay dowladihii dariska ahaa khaasatan Ethiopia oo qaarkood soo hubaysay ilaa 88 dhib weyn oo ka dhacay gobolada waqooyi ee Hargeysa khaasatan oo dad badan ay ku nafwaayeen dhib badan oo ka dhacay dhaawac badan oo ka dhacay qax badan oo dhacay hanti badan ay burburtay waxaa ku soo xigtay 91 oo dee dagaalkii sokeeye uu meel walba gaaray dowladnimadeennii iyo sharafkeennii iyo sumcadeennii iyo midnimadeennii kulli aan ku weynay haddaba haddaan joognaa waxaa la rabaa meeshaan uga socon lahayn inaan aadno oo cadaaladda ah marka waxaa loo baahan yahay garawshaa loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska cafiyo wax alla wixii chapter madow ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka samayno inaan cudurdaar ka samayno inaan raaligelin ka samayno dadkaas waalaheenna ah intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan idhaahno taariikh xun bay ahayd wixii dhacay waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyay
koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn wax qabiil ku salaysana ma ahayn waxay ahayd system dawli ah oo markaas jiray anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaarkaas sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalaheen reer waqooyi idinkana ila qaadataan dhanka kale dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa markaasi waxaan helaynaa nabad baan helaynaa marka haddii aan la qiran wixii dhacay iyo dhibkii dhacay haddii aynan u shaqaynin sida saxa ah oo daacadnimada ah oo ilaah hortiisa ah macnaheedu waxa weeye dhibka aan ku jirno waa ku sii jiraynaa muddooyin badan oo soo socda marka waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa waxaa loo baahan yahay inaan iscafinno kulligeenba inaan iscafinno markaan iscafinno yaa cadaalad la heli marka cadaalad la helo yaa nabad la heli nabad marka la helana nolol baa daba socota wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu